caaw wax dhacayo waa qurux galmudug iyo taariikh dhacaysa xasan cali khayre galmudug taariikh ku leeyahay qoys soo haysto qoryo ilmaade raa ayuu qoryihi ka dhigay taariikhda iyo qalbiyada galmudug ku qoran tahay qofku asaga wax kama sheego laakiin taariikhda iyo waqtiga uu shaqeeyay ayaa hadla galmudug inay caawa heerkan soo gaarto waxaa ka mas'uula madaxiisa Allah raajiyay xasan cali khayre waana kaaga mahad celinaynaa galmudug waa meeshaad ka soo jeeday oo waqti badan aad soo gelisay tan waxaan rajaynaynaa aqoontaada iyo arrimahaada inaad uga shaqeyso si dadka reer galmudug ay u horumari lahaayeen midnimada hadda taagan aysan gadaal u noqon musharaxnimada ayaa soo dhaweynaynaa taariikhda kaa hadashay dadku waa ku yaqaanin waxaad qabatay in galmudug ay midowdo oo hal maamul yeelato oo wada shaqeyso oo ay kalsooni dhex taal abaalkeeda adaa iska leh waxaan rajaynaynaa musharaxnimadaada inaad ku guulaysato si dalkoo dhan uu horumar u gaaro waana kaala shaqaynaynaa abaalna waa nagu leedahay reer galmudugna dad abaal guda ayay u badan yihiin mar labaad inaad anaga noo yeertay oo walow aanan hadda wax dooranayn haddana aad galmudug laxawgeeda iyo laxajecladeeda nagala dardaarantay waa kaaga mahad celinaya sida aad ka dhawaajisay doorashaa dalku ku jira murashax madaxweyne aadna tahay insha allahu tacaala in ilaahay ku guuleeyana waa kuu rajaynaynaa dalka qofka hoggaanka ah sida haddaba intii aad qabatay ka muuqata qalbigiisu xitaa dalka waxbay ka beddeshaa 1,000 jeer guul iyo khayr iyo sharaf baan kuu rajaynaynaa madaxweyne sharafaadana waa kaga mahad celinaynaa intii aad nala jeceshahay baana kula jecelnahay in badan inaan isku soo noqonnana waa rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo meeshaan iyo meel ka sarreysa adoo joogaan aan isku soo noqonna rajaynaa waa mahadsanta waadna waanisay dantayada iyo danta awlaadayada dambe wixii ay mudan doonto tala ku aadan baadna siisay ilaahay waxaan ka baryahayaa kuwii ka faa'iidaysta oo aqbal alla uga dhigo qaata inaanu noqonno reer galmudug inay mid ahaadaan oo xildhibaanadoodu mid ahaadaan danta galmudugna ay ka wada shaqeeyaan waxaa ku jira awlaadayada dambe mustaqbalkeeda iyo future-keeda ku jira waxaa laga arriminayo laga talinayo waa wax qofkii alle salonsiinayaa oo ku dheereeyo oo ku degdego in mid la ahaado xildhibaanadan sida hadda ka muuqata waa dad walaalaa bisil og waxa ka dhaxeeya dadkii ka soo shaqeeyay oo ugu horeeyo number 1 yahay mudane xasan cali khayre waxaanan uga mahad celinaynaa dhabar adaygii iyo kanaacadii bisoo reeb nagu cunaysay ee inta joogay ilaahay ha ka ajirsiiyaan ku leenahay annaguna ku qaata Allah naga dhigo galmudug inaan badbaadino oo aan u qonno annaguna haddana waa isku xirannahay oo joogidayada ka muuqataa iyo dhamaanshahayaga ilaahay idinkii waan isku xiraan doonaa galmudug 3 beel iyo bar ahayd 4 beel iyo bar ka dhigtay muxtaar nuuno waa nagu soo dartay Soomaali kaamil ay ku tahay marka taawa taariikhda beel dahaba taas uga gashay digli mirifli meesha joogo hor sidaas u diirsaday shaqadaasina qof kale ma qaban oo garabkiisina ilaaha galayo nagu garab galayo la shaqeeyay madaxweynaha mustaqbalka dhow ayuu ahaa markuu salka dhigtayo galmudug odayaasheeda dhalinyaradeedii aqoon-yahanadeeda isugu yeerana shaqo la yaqaan oo galmudug ku naaxda ayuu qabtay shaqada oo qabtay waxay ku diirsatay Soomaaliya dhan ay soo rajigelisay ay ku jirto Hargeysa waxyaalaha keeni kara maartay duufaan noqon kara in anagu xasaradana aan abuurin oo aan dad walaalaha wax ka dhaxeeyanahay oo nagu dardaariyo aad ugu mahadsan yahay mar labaad iyo mar saddexaad dardaarankaada waan qaadanay adigna waa kula dardaarmaynaa waxa waaye maadaama galmudug aad dhib badan ka soo martay aad u soo door jeefatay wax kasta oo caqabad keeni kara inaad naga waanadeen mar kasta haddaad madaxweynaha Soomaaliya noqotid galmudug sidii shalay magaca ku leedahay magaca ku yaalo waa ku mahad celinaa garabkaadana haddii ilaahay idmo waa ku duceynaa ducaan awoodnaa waxaa laga yaabaa xildhibaanada halkan fadhiya qaybo ka mid ah inay xildhibaano soo noqdaan ayagana waxaan rajaynaynaa
inay codka siiyaan musharaxa annaguna intanada aan waxelino ducaan kula garab taagan haddii ilaahna waxaa tahay musharaxiinta u tartamaya maanta u taagan musharax si gaara noogu weyn intaana abaal ku leh oo asagu soo dhistoo soo samaystay weli waxaa maskaxdeeda kusii qoran boorkii aanu dhismareebkaaga taagnay noo dhistay noo dhammaystir waana badan iyo talo badan oo wax ku ool ah annaguna wax ku qaadanayno baadna siisay haddaanu nahay reer galmudugna 10 waxaa noogu filan doorashadii horeeto saameynta ay ku yeelatay galmudug oo ayadoo sanad iyo barjidha ay la saqiidhay waa talo fiican talada aadna siisay qof kastoo caqli iyo damiirna waa ay qusaysaa runtii waxaa xasuusanahay meeshii galmudug ay gaadhay iyo meesha aad ka keentay iyo waqtiga aad gelisay adiguna abaalkaaga gaarka ah si gaar ah baad noogu leedahay hadda intaana waa xildhibaano galmudug kala bar ama qaar kamid ah ama 3 meelood meel baa waxay u taagan tahay inay u gudubto senator iyo xildhibaano federaalka ay noqdaan galmudug taallo ayaa kaaga mudan taariikhi ah oo ra'iisul wasaare lama arag asagoo dib u heshiisiin u socdo sidii burburkii Soomaaliya u dhigay wixii ra'iisul wasaare la magacaabayay oo dalka dib u heshiisiin ka qabanayay ra'iisul wasaare fadhiya hal gobol ama 2 gobol oo maamul goboleed ah 40 iyo wax ka sii badan oo dhowr goor ku laabtay lama matid musharaxiinta galmudug oo tirada badan oo yaa adigu xaq laata magacaagu erab bixin waxaan ka dhigay inaad xaq la tahay isku keenay mataaneeyay baarlamaan ka soo saaray ka bacdi madaxweyne saas ay maaragtay loo doortay waxaan dhihi doonaa haddii ilaahay idmo qayra waa xaq leh ee xildhibaanada ka soo baxa la doorto kaalin weyn aan ku leenahay madaxweyne ilaahay idankiis waana guulaysan doontaa dalka ku baahan qaasiyatan galmudug waa ku sii baahan anaga dardaaranka aad nala dardaarantay waa dardaaran muhiim ah in la xoreeyo deegaamada in dadka masaakiinta ah oo dhibban oo Soomaaliyeed oo reer galmudug loo gargaaro in xildhibaanadu ay danta galmudug ka shaqeeyaan doorasho cadaalad ah waxaad nagula dardaarantay ay ka dhacdo galmudug sida aad nagula dardaarantay oo ah xildhibaanada inay tahay shaqadooda koowaad hawsha galmudug waxa weeye qof kasta oo Soomaaliya ama xil ka raba ama xil ka qabtay ama damac uga jiro ama muwaadinba ah asna midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliya inay wanaagsanaato baa waajib ka saaran yahay hadda gogoshan caawa shaqadii aad haysay bay la mid tahay inta dardaaran caawa nala dardaarantay weli waa shaqadii galmudug markii waa qowl iyo ficil shaqadu musharaxnimadaadana waa kugu hambaliyeynaynaa haddeerna waxaan rajaynaynaa doorashadan hirtideeda ilaahay in laga koriyo hadaltideedana ilaahay in laga koriyo markii qalalaaso siyaasadeedan u jeednaa waxaa soo haray galmudug dardaarankaaga waan qaadanay waxaad nagu og tahay cadaalad dardaarankan aan la dardaartana shaqadii galmudug aad u qabanaysay ka mid ee gobol walba lama aadan dardaarmin ninkii ugu horreeyey oo nagula dardaarmana waata habeen dhawood nin baa casho noo sameeyey galmudug warkeeda sooma qaadin nagulama dardaarmin xasiloon iyo fulaan nagulama dardaarmin musharax mudane xasan cali khayr wuxuu ka dhawaajiyey baahidii dhabtahayd ee galmudug waa in laga shaqeeyo inaan carqalad aysan ka imaan doorashadaas aysan dabayla kicin dabaylo waxaa jira koos iyo fooro la yidhaah dowmaha laashkaa markay badda ku heeraan lama arko waa tii aan soo marnay intayna hor waa sugnay meeshii ay ku hallawday waay inaan taasoo kale dhicin dardaaranku halkaas wax weyn aad qabatay ummadda dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa og galmudugna si gooniya ayay maaragtay u og tahay waxyaalaha aad qabatay iyo dadaalka aad samaysay runtii haddaan la isku biimayn lahayn oo awood la saari lahayn ma dhisanteen galmudug aad bay u adkayd xaaladeedu markaba iyadana waan kaaga mahad celinaynaa dadaalkii tii Soomaaliyeed markii ay ku qabsatay kugu dhacday sidaa u samirtayna ay lafteedu Soomaalinimo iyo haddii geeda dabada la geli lahayd dhibaato ay noqon lahayd sida aad u tanasusho wanaag lahaydna ayadana waa kaaga mahad celinaynaa sida aad noo xasuusatay oo noogu yeertay oo sharaftaana waa kaaga mahad celinaynaa de waxa weeye soo dhaweyn iyo marxabayn iyo walaalnimo weeye hadda arrinta dardaaranka ah waxa weeye waa run galmudug waa la wada leeyahay waa guri barwaaqo waxaana ka dhigay ninka aan caawa hor fadhino musharax madaxweyne xasan cali khayre jarow joog intaad hadda ra'iisul wasaaraha ahayd galmudug waqtiga aad gelisay waa waqti qaali ummadda Soomaaliyeed ku ah
adigana kugu ah waxaan kugu ammaani karnaa galmudug inaad ka bixisa galkii muranka ee aada gaarsiisa galkii barwaaqada inta badan waxay eedsataa doorashada kadibna dadka aaminsan galmudug waa dumi maysa insha allahu tacaala anagu dhalinyaraan nahay rajo badanaa noo muuqato galmudug rajaa nooga muuqato dhulkeena xur ah aan u baahannahay madaxweyneta waxaa kuu muuqata galmudug ama xildhibaanadu say kuu jecel yihiinoo musharaxiin badana hadda ka hor casho samayday iyo u yeertay xildhibaanada una maleymaya 3 meelood meel inay u tagta u maleyma caawana haddee nin baal gobolladii ku maqan qof mudug joogtaa nin muqdisho jooga ma maqna inay kula jecel yihiin madaxweyne aa ka muuqata dhowr habeen cashooyin baalkana la kugu yeeray ma tegin aan waxaata caawana axmar weynaa deganaa waa ka imid rag iga sii xageeya sheekh cabdullaahi oo kale ay yimid waa imaan jirin waxay la tahay waadna ku uursamaanaydaa wax gacanteenna ku jira inaysan kaa maqnayn hadda waxaan leeyahay haddii annaga nala weydiinayo xildhibaanada galmudug hamiga ay ku hayaan dhaarintiyaa kuu dhiman wax kale kuma dhimanaa is leeyahay waa hamiga lagu hayo waa ku mahadsantahay shaqada aa qabatay dardaarankeediina u dambeydana caawa waa midda aad nafaraysid muslim isku yimidaan nahay mudane xasan cali khayre wuxuu soo qabta waa la sheegay naqteeda ma rabto waxaan muga rabaa muslim isku yimidaan nahay oo ahlu salaada ilaahay wuxuu u wanaagsan inuu noqdo ra-iisul wasaare anuu kama dhigin qalinkaa ugu dhacay soomaaliya haddii madax laga naqaayo anugu aydaa naqaanaahe ra-isul wasaare haddii la noqdo waxaa ku xiga madaxweyne asigoo haddana caawa yidhi waa rabaa yidhi inaan faataxada ku kaalmayno intayna muslimuhu waxaad faataxo akhrino u duceyno intaasaan anigu soo jeedihaa halka madaxweyne xasan cali khayrena allah sahlo allah ka farxiyo madaxweyne xasan cali khayre allah yeersiiyo anigu intaasaan nuwaadaa allah naga aqbalo